السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena aroornimo saaka waxaa kamid ah warbixin sir ah oo qoreen warbaahinada Middle East iyo kuwa kale ayaa lagu tilmaamayaa in Israa'iil ay muddo dheer u xil saaratay Imaaraadka Carabta in ay u soo jiido oo ay hoos keento dalal badan oo muslimiina oo ay kamid tahay Soomaaliya iyo kuwa kale. waxaynu dul istaagi doonaa warbixinta yaab kale oo lagu falanqeeyay isla markaana lagu soo bandhigay sida Imaaraadka uu muddo dheer ugu shaqeynayay Israa'iil iyadoo Netanyahu iyo kooxdiisana ay u arkeen inay tahay Imaaraadka wadada gaarsiin karto qorshaha loo yaqaano Israa'iisha weyn. macluumaad cajiib ah ayaanu saaka qodobka idinkugu haynaa. qodobada sidoo kale barnaamijka aroornimo aad ku maqli doonto iyana waxaa kamid ah waxaa dagaal weyn oo halisa laga baqaya in uu ku dhex maro dalka Yemen, Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo dowladda Qatar amiirkeeda oo isku xil saaray in halistani uu hakiyo. waxaanu dul istaagi doonaa qodobkaas iyo macluumaad ku dhex jiro. qodobada sidoo kale aad maqli doonto iyana waxaa kamid ah waxaa laga digayaa oo ay qaramada midoobay iyo hay'adaha kale si rasmi ah u soo saareen in Ethiopia iyo Eritrea dagaalkooda uu yahay mid hadda si rasmi ah banaanka u yaala kadib markii labada dhinac ay ciidamo xoog badan ku daabuleen xuduudda u dhaxaysa Eritrea iyo Ethiopia. maxay isku haystaan? muxuu yahay dagaalka Ethiopia iyo Eritrea? laga baqay mar kale inuu soo noqdo. qodobka ugu dambeeyana barnaamijku waxaad ku maqli doontaa waxaa shalay geeriyooday oo cudurka kansarka u dhintay mid kamid ah dadkii ugu halista badnaa bariga dhexe. waa madaxa qaybta cilmi baarista sirdoonka militariga Israa'iil Amit Sar. haddaba ninkan muxuu qaabilsanaa goormuu xanuunka ku dhacay iyo arrimihiisa la xiriiro dhibaatada uu u geystay dalal badan oo kamid ah bariga dhexe iyo kuwa muslimiinta ayaynu isla eegi doonaa. aynu ku bilowna barnaamijkeena aroornimo saaki qodobka ugu horeeya. warbixin ay qoreen warbaahinada ay kamid tahay Middle East ayaa lagu tilmaamay in Imaaraadka Carabta muddo dheer ama in waqti ah uu Israa'iil kala shaqeynayay sidii ay u hirgeli lahayd riyada loo yaqaan Israa'iisha weyn, taas waa in Israa'iil ay ku guuleysto dalal badan oo muslimiina in la hoos keeno. warbixinta ayaa tilmaamayso in Imaaraadka Carabta ay Israa'iil u suura gelisay in la hoos keeno dalalka Morocco iyo sidoo kale kuwa kale oo bariga dhexe ku yaala oo ay kamid tahay Bahrain. si kastaba ha noqotee warbixinta ayaa sidoo kale tilmaamayso in Imaaraadka Carabta sidoo kale dalalka muslimiinta Afrika ku yaala oo ay kamid tahay Suudaan, Soomaaliya iyo kuwa kale iyana lagu dadaalay in la hoos keeno. laakiin Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale isku dayay in Israa'iil uu hoos keeno dalka Yemen, taas oo ay ku adkaatay. labada meel ee la sheegay in Imaaraadka ay waqti dheer ku qaadatay ayaa la sheegay inay tahay Soomaaliya iyo Yemen. si kastaba ha noqotee Imaaraadka ayaa kala shaqeynaya maamulka Netanyahu sida warbixinta lagu sheegay sidii loo hirgelin lahaa Israa'iisha weyn iyadoo loo maraya nidaamyo iyo habab la sheegay inay tahay hirgelinta qorshaha Donald Trump iyo Netanyahu ay diyaariyeen xilmadaxeedkii hore ee madaxweyne Donald Trump waa madaxweynaha hadda dalka Mareykanka loo yaqaano Abraham Accord. maamulka Netanyahu ayaa waxa ay xoog saarayaan sidii loogu soo dumi lahaa ama loo soo gelin lahaa Abraham Accord dalal badan oo muslimiina. ilaa hadda dalalka qaybta ka Abraham Accord ee saxiixay waxaa kamid ah ama qaybta ka noqday Morocco, Imaaraadka, sidoo kale Suudaan iyo kuwa kale. laakiin waxaa jira dalal badan oo la isku dayay in Abraham Accord la hoos geeyo oo iyagu diiday. dhinaca Aasiya iyo bartamaha Yurub aan ilaahdee bartamaha Asia dalal lagu ciriiriyay ama iyaguna xoog lagu saaray waxaa kamid ah Azerbaijan iyo kuwa kale. laakiin ilaa hadda Imaaraadka iyo Israa'iil ayaa ku guuleysan la dalal waaweyn oo ay kamid tahay Sacuudiga oo muddo dheer la isku dayay in la hirgeliyo Abraham Accord inuu qayb ka noqdo ay u suurtageli weysay. Sacuudiga ayaa la tilmaamayaa in uu aad ugu dhawaa inuu qayb ka noqdo Abraham Accord ka hor weerarkii 7 Oktoobar oo Israa'iil ka farcelisay 2 sano oo lagu eedeeyay Israa'iil inay xasuuq ka geystay gudaha Gaza oo ilaa hadda
la tilmaamaya in Israel dambiyo waaweyn ay ka galayso iyadoo waliba wasiirka gaashaandhigga Israel Katz oo mar kale soo saaray isbuucan in Israel soo celin doonto duqeynteedii ballaarnayd ee Gaza ay ka fulinaysay si kastaba ha noqotee dagaalka Gaza ay ka geysatay iyo dhibaatada ayaa la sheegay inay meesha ka saartay rajadii ahayd inay degdeg u hirgasho qorshihii Abraham Accord ee Trump uu ku haminayay madaxweyne Donald Trump ayaa isku dayay in Israel arinta uu kala shaqeeyo isagoo aqalka cad ku casuumay madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad taas oo uu diiday in uu qayb ka noqdo Abraham Accord isagoo ku tilmaamay in sida kaliya Suuriya ay kula heshin karta Israel ay tahay in Israel ay ka baxdo dhulka reer Suuriya ay ka haysato dagaalka Gaza la soo afjaro Israel dhulka Falastiiniyiinta gaar ahaan Gaza ay ka baxdo dhinaca kale Israel ayaa ku guul daraysatay in ay hirgasho rajadeedii ahayd in Abraham Accord ay ku soo jiidato dalar ballaaran oo ay ka mid tahay Algeria iyo kuwa kale si kastaba ha noqotee warbixinta ayaa tilmaamayso in madaxda iyo maamulka Imaaraadka Carabta qaar badan oo kamida ay u shaqeynayeen sidii agent ama wakiil Israel u matalo arrimaha dibadda iyo dalalka muslimiinta way walaalahay saaxiibada qiimiga loo qodobka markaynu meesha ugu gudubno waxaynu toos u galeynaa qodobka xiga barnaamijka waxa mar kale madaxa iskula jiro oo ay u muuqato in dagaalkoodu uu marayo heer halis ah Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta Imaaraadka ayaa lagu eedeeyay inuu taageerayo kooxda gooni goosadka ee koonfurta dalka Yemen ee doonaya inay kala jaraan dalweynaha reer Yemen taas oo dadweynaha Yemen iyo dawladda magaalada Cadan ay aad u diidan tahay Imaaraadka Carabta ayaa waxa lagu eedeeyay inuu hubeeyo oo hoos ka wado jabhadaasi iyadoo jabhadaasi markii hore ay haysatay dhul ballaaran kadib weeraradii Sacuudiga isbuucan uu ku qaaday ayaa la sheegay inay keentay in dhul badan laga saaro oo ay meesha ka baxaan awoodii kooxdaasi Sacuudiga ayaa sidoo kale digniin adag dul dhigay Imaaraadka Carabta taas oo keentay ugu dambeyn wasaaradda arrimaha dibadda dalka Imaaraadka Carabta in uu sheego inuu ka baxayo koonfurta dalka Yemen laakiin warbixinaha hadda soo baxaya ayaa tilmaamay in Imaaraadku dib isku qaban qaabinayo oo uu doonayo in uu dagaalka Yemen sii wado Imaaraadka ayaa dalal badan oo ku yaala geeska Afrika iyo sidoo kale Aasiya waxa uu ku leeyahay saameyn ballaaran Imaaraadka ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in uu qorto oo uu diyaariyo kooxo calooshii shaqaystayaal waxaana sanadkii hadda laga soo gudbay 2025 lagu tilmaamay in Imaaraadku yahay dalka ugu badan ee qorto caloosh shaqaystayaasha iyadoo qaybta labaadna la tilmaamay cidda ku xigta Imaaraadka in ay tahay Israel oo iyana qorto caloosh shaqaystayaal dagaalkii Gaza inta uu socday ayaa Israel la sheegay in ay qortay caloosh shaqaystayaal badan oo ka dagaalamay gudaha Gaza dhanka kale Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay caloosh shaqaystayaasha ugu badnaa oo ay qorto in ay ka soo jeedeen dalka Colombia si kastaba ha noqotee amiirka dalka Qatar Amir Tamim bin Hamid ayaa la sheegay inuu dhexdhexaadin ka bilaabay hadda ama uu ka dhex wado Imaaraadka iyo Sacuudiga si loo baajiyo dagaal weyn oo keeni karo in gobolka dhan uu saameeyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman iyo sidoo kale Mohammed bin Zayed ayaa la sheegay inuu dhexdhexaadintooda hadda wada Tamim bin Hamid oo ah amiirka dalka Qatar waxa cajiiba oo la yaaban yahay Imaaraadka iyo Sacuudiga Mohammed bin Salman iyo Mohammed bin Zayed waxa dhexdhexaadinaya Tamim bin Hamid maxay la yaab u tahay waxa la yaab ka dhigay labadan dal ee hadda uu dhexdhexaadinayo dawladda Qatar amiirkeeda waxa jirtay xilli ay iskugu tageen Imaaraadka iyo Sacuudiga iyagoo soo kaxaystay inta badan dawladaha bariga dhexe waxa xilliga u soo gurmaday dalka Qatar ee la go'doomiyay raashinkii laga jaray hawadii laga jaray dhinac walba laga jaray ilaa lagu qasbay inay Qatar isticmaalaan hawada Iran macnaha saacadaha sida isku bedelayaan maalmuhu isku bedelayaan ay cajiiba sanadyo badan kama soo wareegan dhowr sano un baa ka soo wareegtay markii Qatar la go'doominayay oo ay iskugu tagayeen Sacuudiga iyo Imaaraadka maanta iyadii waxay heshiisinaysaa Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ay leedahay waxaan dhex dhigaynaa in hal oo labadoodii waxay isku dagaali rabaan dalka Yemen si kastaba ha noqotee doorkan ay qaadatay dalka Qatar ayaa la sheegay inay tahay fursada kaliya ee lagu baajin karo isku dhac ballaaran oo markaa keeni karo in dagaal weyn uu ku dhex maro
sacuudiga iyo imaaraadka gudaha dalka Yemen. laakiin sacuudiga ayaa aaminsan ayaa lagu waramayaa in dhaqdhaqaaqa iyo tallaabooyinka ay wadaan imaaraadka inaysan ahayn mid loo dulqaadan karo. imaaraadka carabta ayaa godad iyo sidoo kale saldhigyo waaweyn dekada la wareegay dalal ay ka mid tahay Soomaaliya, Suudaan, iyadoo sidoo kale imaaraadka ay isku dayeen inay si ballaaran ugu lug yeeshaan dalka Suuriya. madaxweyne Axmed al-Sharaa ayaa la sheegay inuu aad u xadiday dhaqdhaqaaqa imaaraadka carabta, iyadoo la sheegay talo iyo tusaaleyn ballaaran inuu ka helay dalka Turkiga oo si weyn ugu lug leh dalka Suuriya. way walaalahay saaxiibada qiimiga loo qodobka iyo qodobkii ka horeeyay markii meesha uu gudubno waxa inoo soo socda laba qodob oo kala ah Ethiopia iyo Eritrea oo iyagana madaxa iskula jiro. qaramada midoobay oo walwal weyn ka muujisay xiisada ka taagan xuduudda Eritrea iyo Ethiopia ma aan markii ugu horeeyay isku dhacaan iyana waan isla eegi doonaa. madaxii qaybta cilmi baarista sirdoonka militariga Israel General Amit Sar oo dhintay cudurka kansarka. haddaba ninkani muxuu ahaa saameyn intee leeg ayuu bariga dhexe ku lahaa? marka hore saynu ku yaraha kanu walaalaha qiimiga lahow inaad qorateen oo aad la xiriiri doontaan. aynu ku bilowno dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa laga digayaa suurtagalnimada dagaal ballaaran oo labada dhinac dhex mara. dagaalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa la sheegay hadda inuu u muuqdo mid inuu hakado ay adag tahay, iyadoo Eritreaanku ay isku diyaarinayaan dagaal ay uga gudbaan xuduudda dalka Ethiopia, iyadoo la sheegay in ay si weyn u taageerayaan Eritreaanka kooxda Tigray ee doonaysa iyagu inay ka go'aan Ethiopia. qowmiyadaha Ethiopiaanka ayaa la sheegay hadda inay madaxa iskula jiraan, iyadoo Amhara iyo Eritrea Amhara iyo Tigray ay aad weyn ka tirsanayaan maamulka Abiy Ahmed oo ay aaminsan yihiin inuu yahay maamul si weyn dhibaato ugu geystay dadweynaha reer Ethiopia gaar ahaan Tigrayga. deegaanada Tigrayga ayaa dhinaca kale lagu soo waramayaa in ay macluul iyo gaajo daran hadda wajahayaan, iyadoo la sheegay qaybo badan oo ka tirsan dhulka Tigrayga in ay ka jiraan biyo la'aan, taas oo ay lagu eedeeyay dagaalada muddada dheer socday iyo go'doominta maamulka Abiy Ahmed uu galiyay deegaanada Tigrayga. dhinaca kale Amharada ayaa iyana ka godoodsan nidaamka iyo habka maamulka Abiy Ahmed uu wado. dhinaca kale Soomaalida Ethiopia deegaanada Ethiopia ay haysato ayaa iyana la sheegayaa in dhowr jeer weeraro iyo dhibaatooyin loo geystay, iyadoo dowladda dhexe la sheegay in arrintaasi ay si rasmi ah waxba uga qabanin dhibaatooyinka Ethiopia ay wajahayso. dhinaca kale Eritrea ayaa iyana wajahayso dhaqaale xumo aad u daran muddo cunaqabatayn ay saarnayd iyo dunida ay ka go'doonsanayd darteed. haddaba labada dhinac oo xaaladda dhaqaalaha iyo midda amni intaba halis weyn ku dhex jira gudahooda ayaa haddana labada dhinac waxa ay iskugu hub urursanayaan dagaal weyn oo dhex maro, iyadoo qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamiga ay ka digeen dagaalkaas in uu keeni karo in 100,000 oo labada dal ah gaajo ay u dhintaan, iyadoo sidoo kale uu keeni karo iyo qaxooti cusub oo gobolka kusoo biira ama kusoo kordho, iyadoo sidoo kale laga baqayo dagaalkan in uu sababo dhimasho ballaaran oo malaayiin Ethiopian iyo Eritrean ay ku dhiman karaan. laakiin siyaasa Afwerki iyo Abiy Ahmed ayaa u muuqda dagaalkan in uu ka baxay gacantooda oo hadda ay u muuqato mid inuu hakado ama joogsado ay adag tahay. waayahay walaalahay saaxiibada qiimiga lahow labada dhinac dagaalkooda ayaa la sheegay inuu salka ugu weyn uu yahay Ethiopia oo doonayso inay hesho dekad, iyo sidoo kale Ethiopia oo aaminsan in Eritreaanku ay siyaasadda gudaha Ethiopia ay ku lug leedahay, iyo Eritrea oo aaminsan Abiy Ahmed inuu yahay nin halis ah oo doonaya gudaha Eritrea inuu khalalaasa iyo fowdo geliyo. Abiy Ahmed ayaa hore u ahaa madaxa sirdoonka dalka Ethiopia. qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena aroornimo saaka waxaynu ku soo xireynaa war weyn ayaa waxa uu ka imanaya gudaha Israel. waxaa shalay Israel ku dhintay madaxii qaybta cilmi baarista sirdoonka militariga Israel General Amit Sar ayaa u geeriyooday cudurka kansarka, iyadoo Amit Sar uu cudurkan mudahayay waxaana la sheegay markii ugu horeysay cudurkaasi in laga helay sanadkii 2000, iyadoo ilaa 2024 ninkaasi uu aad ugu dhibanaa cudurkaasi. laakiin sanadkii 2000 ilaa sanadkii 2024 ilaa 2025 ayaa la sheegay inuu ahaa sariir saar. ugu dambeyn 26 uu geeriyooday
qaabka cudurka u asiibay qaabka u dhintay ayaa si la yaab leh ka hor dagaalkii 7 Oktoobar iyo wixii kasii horeysay ayaa la sheegay Amiir Saar in uu ahaa nin si weyn arrimaha Falastiiniyiinta ee bariga dhexe saameyn ugu leh militariga Israa'iil macluumaadka u qaabilsanaa waxaana la sheegay xarig loo geystay mas'uuliyiin waaweyn oo Falastiiniyiin ah in uu ahaa maskaxdii ka dambeysay cidii soo qabatay Amiir Saar ayaa la sheegay in gudaha Falastiin looga yaqaan inuu yahay kawaanlaha caan baxay ee ku nool gudaha Israa'iil Amiir Saar ayaa la sheegay in uu u qaabilsanaa dhanka Israa'iil ururinta siraha gudaha Falastiiniyiinta iyo guud ahaan bariga dhexe waxaana la sheegay inuu ahaa generaal si weyn militariga Israa'iil looga garanayay waxa uu sidoo kale ahaa ninka isku xiro sirdoonka labada sirdoon ee Israa'iil iyo militariga Mossad iyo sidoo kale Shinbet iyo militariga madaxii isku xiray ayuu ahaa si kastaba ha noqotee geerida General Amiir Saar ayaa waxa ay qayb ka tahay koox generaal ah oo Israa'iil siyaabo kala duwan ugaga dhintay tan iyo 7 Oktoobar lama garanayo in Amiir Saar kansarka uu dhintay uu ahaa mid Israa'iil ay waqti hore sii ogeyd oo dabcan way ogeyd laakiin ma ahan mid gudaha Israa'iil shacabka ayaan uga dan leeyahay ay la socdeen laakiin waxa la yaab noqotay in muddo la qariyay laakiin markii u dambeysay warbixintiisa banaanka la keenay oo shaaca laga qaaday in muddo dheer oo Amiir Saar u dhibaataysnaa ama uu ku rafaaday cudurka kansarka ah warbixinta ayaa sidoo kale waxa laga dheehanayaa inuu aad ugu rafaaday oo ugu dhibtooday cudurkan oo muddo dheer sariirta la saarnaa walaalaha saaxiibada qiimiga lahow